nin taksiilaha ayaa u yimid inuu qaado gabadh uur leh waxay ku jirtay xilligii foosha neeftuna si xoog leh ay uga soo baxaysay laakiin ka hor intii aanay gaadhiga gelin haweeney si qurux badan u labisan ayaa si degdeg ah u soo oroday albaabka ay iska furtay kadibna gudaha ay u soo gashay waxaan leeyahay shir muhiim ah waanan habsaamay hore ii wad darawalkii ayaa dib u jeestay marwa gaadhigan adiga kuma iman gabadhaasi foosha ayay ku jirtaa waxayna u baahan tahay in hadda cisbitaalka si degdeg ah loo geeyo gabadha indhaha ayay rogrogtay gabadha yar miskiinta ay kama muhiimsana shirkayga iyo shaqadayda waxaan ku siinayaa $500 waana mushaharka aad bil dhan ku shaqayso hadda may kaxayn kartaa darawalkii ayaa ka cadhooday gaadhiga ayaa ka degay albaabkii ayaa u furay waxaanu si adag u yidhi ka deg gaadhigayga laakiin si lama filaana haweenaydii uurka lahayd ayaa joojisay fadlan mudani waqti ma hayno waan wada raaci karnaa marka hore iyada gee gabadhii maalqabeenka ahayd ayaa si jees leh u dhoola cadaysay ma aragtaa iyada ayaa ka caqli badan ugu dambayn way wada dhaqaaqeen markii ay gaadheen dhismihii xafiiska haweenaydii maalqabeenka ahayd ayaa gaadhiga ka degtay dabadeedna si iska caadi ah $80 ugu tuurtay gudaha gaadhiga darawalkii ayaa ka cadhooday waa maxay waxaasi waxaad ballan qaaday $500 haweenaydii ayaa qososhay dadkiina saboolka ahi mar walba waxaad isku dayeysaan inaad si degdeg ah taajir ku noqotaan nasiib baad leedahayba haddaan kugu siiyey $80 tagsigan layla soo raacay ee foosha xun kadib way iska dhaqaaqday darawalkii waa uu aamusay waxauna si degdeg ah haweenaydii uurka lahayd ugu qaaday cisbitaalka ka hor intii aanay gaadhiga ka degin waxa uu dhiibay boorso yar gudaha waxaa ku jira $800 waana kaalmo yar oo aan ku siinayo waxaan rajaynayaa in adiga iyo ilmahaguba aad caafimaad qabtaan kadibna waa uu dhaqaaqay dhanka kale haweenaydii maalqabeenka ahayd waxay si kalsooni leh ugu fadhiday gudaha xafiis raaxo leh iyadoo sugaysa milkiilaha shirkadda daqiiqado kadib albaabkii xafiiska ayaa furmay kadibna way yaabtay waxa uu ahaa isla darawalkii si degan ayaa uu gudaha u soo galay waxauna fadhiistay kursigii milkiilaha shirkadda kadibna wejigeedii oo dhan ayaa isbedelay waarsug maxaad halkan ka qabanaysaa weli ma lacagtii ayaa daba socotaa ninkii ayaa si degan u eegay maymay ma daba socday anigu waxaan ahay mulkiilaha shirkadda aabbahay waxa uu ahaa darawal tagsi muddo 20 sanno ah maanta ayuu shaqo u lahaa laakiin wuu xanuunsaday sidaas darteed ayaan booskiisii u galay gabadhii argagax ayay qaaday fadlan ii cafi sanad dhan ayaan u shaqaynayay heshiiskan waa heshiis qiimihiisu yahay $3.5 milyan ninkii ayaa si tartiib ah madaxa u raxay haddii aadanba naxariis u yeelan karin haweenay foosha ku jirta sideen ganacsi kugu aamini karaa kadib si toos leh ayuu indhaheeda uga eegay heshiiska waa la joojiyey sababtoo ah guul aan bini'aadantinimo la socon waa guuldarro